musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhece ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal kulanti wacan oo wanaagsan xilli wacan dhegaystayaal idilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkii gaarka oo aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuqu uu leeyahay iyo siyaabaha looga hortegi karo wadaha loogu dhaco ayuu musuq maasuq yahay waa mar kale iyo barnaamijkii gaarka ahaa waxay taariikhdu xilligan ku beegan tahay 15 bisha 3aad sannada 2015 dhegaystayaal barnaamijka xilligan waxaad ku maqli doontaan marka hore sheeko aynu ugu talagalnay dhibaatada musuq maasuqu uu leeyahay waxaa xigi doona qaybaha martida oo aalaaba barnaamijkan gaarka oo ay hay-adda markhaati soo qabanqaabisay idaacadda banaadirna ay baahayso oo aynu ku soo bandhigno amba miiska aynu keenno mas-uuliyiin kala duwan hadday ahaan lahaayeen dhanka dowladda hay-adaha madaxa bannaan iyo ururada bulshada rayidka oo dhammaantoodba wada gorfeeya waxa uu yahay musuq maasuq si qaybaha dambana dhegeystayaashu qaadka taleefanada barnaamijka doodda ay uga qayb qaataan balse inta aan duluucda barnaamijka furin waxaan jeclaan lahaa marka hore in aan ku furo qaybtii koowaad ee sheekada amba qaybtii hore sheekada oo aynu galabta sheekada kaga hadlayno musuq maasuqa gaar ahaan qaybta bixinta mixnooyinka ambaba waxbarashada jaamacadaha iyo waxbarashada deeqaha ee dibadda laga helo horta adduunyada waxaa la yidhi gurbaan gacalkaaga ku haya ma garabkaaga kugu jiro adduunyaduna waxay ku macaan tahay in meel kasta inuu qof jiro horta maalinkaan soo baxayo halkaan imaanaya oo howlahan aan faraha la gelaya waan dadaan usoo tegey dadaan usoo baxay dadkii aan usoo baxayna inaan moogaado maanta ma shaqaynayo walaalkay maaday inaan waco waayo inaan u sheega waayo inay fursad soo baxday in aan gabadhii rabo inuu soo diro inaan teleefoonka walaalkay waco waayo wuu ii dhacayaa teleefonkiisii hallele maanta teleefonka walaalkay ay soo dhacayo wadankana waxaa waa iska qasnaya xaaladana waa iska jireene ilaa afkiisa qeyrka ilaah waxsan halo walaalkay salaamu calaykum abow ii warasee tahay nabad ma fiican tahay waarona mageeli baad la jirtay marka teleefoonka maxaa ii qaban weysay macnaha duurkaad ku jirtaan u malaynayaa iyow duurna kuma jirina meel jalbeebaan iska fadhiyey xaaladaada ka warabal abow macaan horta teleefoonka dhib keliyaha ka filan haye qayrkana ka filo markuu ku soo dhaco teleefonkaaga dhib keliyaha ka filane qayrkana ka filo qayr afkaa igagama horeeya waxaan rabaa gabadhii maryamo ahayd oo aan adeerka u ahaa ma la soo doontay lama soo doonanay dhegayso gabadha waxaan rabaa inaad gaari ii soo saarto oo aad soo dirto sida ugu dhaqsaha badan ee ii soo gaarto islaanta may ku umulbixi rabtaa maya abow anaa kuu sheegaya see wax u jiraan siday wax u jiraan waxay tahay in horta deeq waxbarashaan hele waddankana waxaa ka socda qof walba dadkiisa qof walbana dadkiisau rabaa inuu meel geeyo hadda cunugtaan wax ma barana anna wax ma barine ama nacabaysaa fiiri arrintaas adiga wax kaaga 15 ma jiraan meelaha hadda ila aadaysana wax shaqeeya maaha maryama gaari ii soo saar adiga waa iska dhiibaa gabadhan waa dhiibaa bal waxa ma hel la geeyaan arkaa waxay soo baradsaan arkaa hadduu leeyahay jaanis kaan jiro waa jaanis fiican reerkaan uga faa'iideeya hadduu leeyahay waaba howshu xamar u aada ayo walaalkay go'aana qaat ma qaadato go'aan inta aan kaa maqnaay qalbigayga la sheekaysaya go'aan cadaa qaata waana soo diraa gabarti waa maasan tahay waa sugaya sida ugu dhaqsaha badan hay soo gaarta maryamo gabartayda marinayd aabo waa ku maqla aabo maanta xoolo raac maanta u dambayso wadaadka adeerkaa intii soo wuxuu leeyahay gabadhayda soo dir min xal loo diraa waxbarasho u leeyahay aabo min xada sheegi sidna maba ka saaye laakiin xamar waa rabaa aabo xamar ma la ii wadaa xamar ku roona diyaaradaha lagu saari rabaa diyaarad ma taqa adiga aabo waa maqli jiray ma aqaano waxna waa lagu baraha la yiri waxbarashana waa lagu wadaa marka islaanta diriskayna heedaa baxe islaantaas lagu daraa waxa waaye xamar lagu wadaa adeerka lagu geeyaa aabo haye ma sha diyaarad waa maqli jiray xamar waa maqli jiray laakiin xamar aabige horta xamarige xamar arkaya bal dhumana meesha hada islaantan diriska ku wadee marka waxa waa adiga diyaar garow howshaada isku leexsa
ismoogaan ha ugu dhicin maamada waxay ahayd macal cune muuqan doone musuqa cune muuqan doone macal cune muuqan doone gabartaydii waa diyaar garowda oo maleeha ha abba diyaaraan ahay meeshii dhibka loo mari jiray oo doonta loo raaci jiray oo badaha lagu baabi'i jiray ilbiraqsiyaa ku tegay adeerka ilaa adeerkaa kuu dhaaf haye ha abba macsalaamo ay macsalaama gabartaydi adeer gurigiisa waaba kan waaba lay keenaye yaa waay wax albaabka soo garaacaya waa isagaya umalaynaa adeer waa aniga oo gabadhayda soo gal soo gal soo gala adeer seeta adeer maxaan aw islaanta kula socda hayeed waa mahadsantahay heeyaa khayr allah ku siiya haddaa igu soo sintay aad baa u mahadsantahay waxaan kaa rabaa gabadhaydii soo fariisa bal horta halkaan soo fariiso adeer waa fadhiya seeta adeer adiga alxamdulilah waxaan kaa rabaa adigoo macnaha qof dhalaalaya ahaan rabaa macnaha waxaan rabaa horta inaan ku dhoofiyaan rabaa dibaddaan rabaa inaan kuu diro deeq waxbarashaan rabaa inaan kaa qaybgeliyo ay walaashaa isticmaalaysood aragto adiga maya maahan ayadaa kuu sheegi doonta kolley haweenkaa isticmaala waa waxay haweenka isticmaalaan marka gabadhaadu sida ay macnaha walaasha ay kuu sheegto waddaday walaashaa marku yidhaahdo waxaan rabaa inaan marto ayadaba shalay sidaasoo kaleetan fursad lamida ayaan horta ugu dhoofiyey haye adeer waa sax laakiin dee wuxuu dhib ii keenayna waa caadi adeer waayo adeerkay baa tahay walaashay waa idi aaminsanahay laakiin ani subag iyo saliid iyo aqaanay oo laisku gacmaha iyo madaxa iyo subagii soomaad oqoon waxaan kale maxaa waaye subagii la casriyeeyey waa la casriyeeyey casri miyaa asagiya casri laga dhigay haa macni wax fiican waa ka wadaa wax fiicana laga waa la casriyeeyey haa ma fahmaysaa marka iinaso ii seexo guriga ii gal qubayso rarka iska bedel ii baashaal waa sheekaysan doonaa adeer macaan haye adeer haye horta way isku toost maryamana way ila joogtaa gurigii bay joogtaa kama walawal qabo meel dheer ka raadin maayo meel baan kusoo ogaaday laakiin waa inaan ninkii odayga ahaa aan u tagaa si aan uga dhaadhiciyo in gabadhaasi fursadaasi aysan seegin waa inaan sidii aan uga dhaadhici lahaa qaabkeedii wadadeedii waa inaan u maraa marka waa inaan hadda u tagaa xafiiska saacadan ma laga waayo isagu ma tago ninkaas ma aqaan aniga wuxuu meesha mabaan luxsanaya meesha waan uga tegaysaa asoo joogaad uga tegay asoo joogaad u maata bal horta aan u tago war haye ii waran yaa joogaba yaa xafiiska ma furan yahay soo dhaaf waa kuma war ii waran waa fiican war ka basatahay xaaladda iga waran fariis waa fadhiyaa horta fadhi kama gaaree waxaan kaa rabaa saaxiibow waxa adiga ii qaban lahayd ayaan rabaa maanta inaan macnaha aan kaala hadlo waa gartay macnaha hadda meesha aniga aad joogo marka adeedan kaa soo gasho macnaha waxa waaye waxaad jeclayd inaan kuu fududeeyo si fiican haddii macnaha sida aad jeclayd inaan kugu fududeeyo adna aniga in ay igu fududayso waay ma in las gacan qabto wax loo baahan yahay waa tahay waxaan kaa rabaa ma haysaa liiskii dadkii loo ballan qaaday deeqaha waa haya weli waa haya ha ma haysaa liiskii waxaan kaa rabaa liiskaas waxaan rabaa in aad gabar iigu darto aan adeerkeed ahay maxay tahay gabadha adeerkeed baan ahay aniga adeerkeeda walaalkay da'da iga yarayd baa dhalay horta minxooyinkan waxbarashada ama deeqahan waa mid loogu talagalay ardayda waxbaratay in aqoontooda lagu sii kordhiyo oo lagu qaado oo waxbarasho kale lagu soo siiyo marka gabadha aad adeerka u tahay wax hore muu soo baratay wax ma taqaanaa ma qofaan wax aqoonin baad aragtay warkaas war dhan waay gabadhan haddii ay wax taqaano waaba kuu sheegay waa lagu daraa waa la qoraaya waana la qaadaya wax weyn imtixaanay galaysaa waa nasiibkeeda maamada waxay ahayd macal cune muuqan doone musuqa cune muuqan doone macal cune muuqan doone musuqa cune muuqan doone ninkii malabsiga barto kumushin baa maanta jira mintina soo afaystayo musuqa dabargoynayo sharciga meel marinayo mareegtiya dhabinka dhigan ismoogaan ha ugu dhicin ismoogaan ha ugu dhicin maamada waxay ahayd macal cune muuqan doone musuqa cune muuqan doone macal cune muuqan doone qodobo yariisa macnaha ayaana la weydiinaya haye adiga soo bax horta aniga soo raaca haye nabad soo bax kaba haye ha kaba war gabadhii maad wadaa gabadhii baa ila socota soo dhawaada waxaan kaa rabaa horta gabadhayda waa gartay waxaa la yidhaahdaa maryam soo dhowow la wareeg maryan igala wareeg ma fahmaysaa soo ogaa xogteeda waxaan kaa rabaa xoogaa yar banaanka dad igu sugayaan liftiga arrimaha rabaa inaan iska xaliyo waxaan rabaa hawshaas adiga dhinacaaga inaysa iiga soo laaban si fiican waa maasanta waa yahay maryam soo dhowow waa sidoo adeerka
adeerka kugu sheegay waxaan gelaynaa imtixaankii kolley wax inaad soo baratayna adeer waa ii sheegiyo gabar fiican oo hay aad tahay oo shahaadooyin sarsarana haysata soo dhawow waxba ha baqin ardaydanna waa arday kula mida adiga sida aad wax u rajaynayso u rajaynayo mar kale soo dhawow ii fariiso kursigan warqadanna hoo waa warqadaadii imtixaanka ee aad iska fiirin lahayd marka waxa waaye waxba ha baqin waxaan waa wixii aad soo baratay revision aad ku samaysay oo marar badan aad u soo fariisatay waraaqahan maxaa waaye laakiin ani adeer waa lagu dhoofinaa ugu yiri laakiin waraaqadahan ay dhiibtay maxaa waaye see yeelaa hadda waaba dhoofinta waxaa ka horeysa inaad imtixaankan gasho warqadahan iyo ardaydan fadhidiisa uma jeedid ardaydan soo uma jeedid fadhido imtixaanka ku wada jirto mid kasta uu mashquulsan yahay waa u jeedaa waa arka imtixaanka maxaa waaye laakiin adigana kursigan fariiso warqadahan qaado qalinna waa kana qalinkan qabso imtixaan maxaa waaye marka qalinkan qabso warqadanna waa qorigan ay dhiibtay inaa iga gelin bar horta iga daa waraaqdana ma aqaana sheegi sida iga dhaaf qalin ma garanaysid ma aqaano wali imtixaan ma soo gashay imtixaan maxaa la dhahaa horta ii sheeg bal okay aad maxaa soo baratay ii sheeg aniga kariyow iskool ma fariisat fasal iskool muxuu yahay waxa waaye saxiix ah soo hoos geli gabaran soconaynin oo xitaa aan fasal soo fariisan iska daa imtixaan ay soo gashay ayuu fasal keenay tan aan ku daro liskii aan gunaayay oo banaanka tikidhadeedina ardaydan hadda qaar badantoodii iyo waa la diyaariyay iyo xitaa hoteelada xagga markay tagaan ay fan lahaayeen iyo pocket moneygoodii dhammaantood marka gabadhan ma aqaan siyaan u daro qoftan qof soconaysa ma ahanbe ma anfacay wiilkii inaad ninkii saaxiibka iikan inaan waca waaye banaanka inuu fadhiyaan u malaynaa war kaalay saaxiib haye horta niyahow nin fiicanaad tahay horta ma aragtay gabadhan kuu keenay nin dadaalayaa tahay oo jecel gabadhiisu baratay laakiin gabadha aad ii keentay iska daa in dibad loo guriyay warqada iyo qalinka aan u dhiibo way garan weyse maxaa la dhahaa warqadan kan maxaa la yiraahdaa qalinkan qoragan muxuu qalinkii qoral niyo waxa dhageyso waayahay maqalhe ma fahansiis adigu u sheegtid kan waa qalin tan waa warqad kan waa buug adiga ma u sheegtid ma qalin iyo warqad fahansiinay adiga u sheeg niyo midaan ku sheegay qalin iyo warqad qof la fahansiinayo gadaal oo la naqanay horta dhageyso ina iskuul geyso ee loo soo bilaabo ilaa iyo intaan ay soo gaar markaas kadib aniga maqal saxiib oo socod waqti badan ardayna waa isugu horta ina ay maqashay isku day fiiri nin walba horta dad u shaqeey wax ka qoyay waxaan waxbaristooda wax ka maqayaan dhageyso adiga fiiri warqadii ma taqaan lacag ku ogolaa lacag fiiri lacag adduunka jeeba shaqeeya maqal ma fahmaysaa wax allaala iyo waxa rab i weydii aniga baasha marka hoos yaana laga maqal nihow dhageyso midaan ku sheego maqal saaxiib haye baasha yaana halaabe yaana la maqal fahmaysaa aniga lacag weydii adna gabadha daristeeda ku weydiiyo qaabkii gabadha ay ku beelahay aan ka hadal aniga lacag weydii saaxiib ani horta nin weyn ahay koode hawshaana waa lee xil saaray maanta qof aan dhaqaaqaynin oo xitaa qalinkii aan garanayn haddaan ku daro president diyaaradda ku saarayna imtixaanka warqad sideen garoonka ku geynayna wadan kale sideen ku geynayna aqliyaan ku haya imtixaanka warqadaas ana ku weynu masuul runta ku sheegaya war waa dhibaato haye bal adiga warqadan horta aan soo buuxiyay kadib nin waxaan aad uga cabsi qabaa maya aniga fiiri nin waxaan aad uga maqal cabsida maxay tahay waxaan ka cabsanaa nin weyn oo wax loo dhiibay oo arday iyo mixnooyinkii waxbarashada scholarshipkii la siiyey in arday aan xitaa qalin qof aqaan adiga warqada buuxi ana baa sii weydii aniga maxaa isku haystaan waxbaa isdilin ukaadi maxaa isku haystaan gabriel soo dhawow ninkan horta waa nin saaxiibkeeya dadka aan qadariyo ku jiraa anigana waxaa lay dhiibay minxooyinkii ardayda oo la rabay in lagu qaado waxbarashadii dibadda ay heleen oo deeqihii waxbarasho ama scholarshipkii wuxuu ii keenay gabar uu leeyahay gabadhaas waxbay soo baratay inaa iigu darto waaye aqoonteeda aan uu ku qiimeeyey waa wada fasalkii warqadii imtixaanka oo ardaydii ay ku gelaysay markaan u dhiibay warqadii iska daa xitaa qalinkii aan u dhiibay garan weyse kan maxaa waay leedahay waan kuu sheego waxaa waaye qof walba waxaa la rabaa caqligiisa inuu shaqeeyo anigii ninkan waa is afgaranay wax walba waa iska afgaransannahay maxaa kartaa adig maxaa qosay waxaan ka rabaa maxaa soo doonteen yaa idin wacday waxaan soo doonaa maxaa isku bedesheen xuquuqdeena raadinayaani ciid bilaa marasha daarashin adeer maxaa meesha ka taagan fiili waxaan soo islaantii ma aha oo maryama musuqdiid maxay magacay madiina musuqdiid soo maaha haa waa aniga odaygaana soo ninkii kale oo isna xaafadda degan aadan soo maaha ha
ninkaani soo macalin mukhtaar maaha maxaa laysku haystaa odayaasha xaafadda nahay adeer waxa laysku haystaa kuu sheegay leesmaba haysto aniga ninkaanu waa isfahansanna maxaad isku fahamteen adiga ninkaani aniga asagu waxa isku fahanay anna waa ogahay ilaahayna waa ogyahay asaguna waa ogyahay annagana noo sheega qalad baa isku fahantay qalada isku fahantay maya sug bal waale noo sheega annagana waxa isku fahamteen maxaa idinka dhexeey maanta dhan qababa indhaad farayso waa islayseene noo sheega adeer soo dhawow haye adeer horta odayaashii deegaankana waxaa tahay aan mar kasta arko adna waa taqaanaa kulley ninkan odagaa saaxiibkay wuxuu ii keenay gabar oo adiga ku siiyey ima siinin anigu macalinaan ahay waxaa jiray deeqa waxbarasho oo la helay ardayda yaa helay maandhow yaa helay deeqaha waxbarasho ardayda soomaalida ahaa loogu talagalay soomaalida oo dhan baa heshay loogu talagalay qaybtii annaga naga soo gaartay waxaa la rabay in la siiyo ardayda dugsiyada sare ka baxday imtixaano ay galaan markii ay ku barmoosaan ama ay ku baasaan dibadda waxbarasho kale oo loo qaado aqoonsi haye adeer ninkan wuxuu ii keenay gabar qalinka xitaa aan garanayn iskuul iskaba dhaca ay soo martee way hadda waad isfahamteen uu leeyahay wixii aad isku fahamteen noo sheega ninkan markaan u soo noqday oo aan iriniyow gabadhan gabar wax soo baratay ma ahan ee dib ula naqay wax soo bar nasiibkeeda dambo iyo deeqaha waxbarasho dambe yimaado ayay ka faa'iidaysan doontaaye wuxuu yidhi waxaas iska daaya lacagan ku ogolahay haye waa baashi wax qaribtay hadda nin weynaan ahayo wax loo dhiibay lacag haddaan ka qaado waa baashi gadaal igu soo noqonaya gabadhu magaceeda xitaa ma qori taqaano acuudu billahi min ashaytaan rajiim haye odayaashii deegaankana waa ana shaqan qabsalaha ardaya fasal igu jirto aan warku siiyo waa waxa ay nagu curyaamiyeen ma garanaysaa waxa ay nagu curyaamiyeen waay waxaa laga helayaa wadankeena hooyo yaay u soo goobeysay dhuxul u goobeysay cunugeeda si ay wax ku gaarsiiso kiyo waxbarasho la in baadiye mid kale inta laga keeno si garab ah lagu wado wax soconaya maaha waana dadka macnihii kala reebay islaanta haddana musuqdiida la magaceeda iyo dhaqankeedu waa isleeyihiin marka taasna waxaan qaadanaynaa maaha annaga waxaan diyaar u nahaynaa xuquuqdeena soo ceshano madaxaana lagaga taagan yahay laakiin shacab ahaan madaxaana laga taagan laakiin waxaan raadinaynaa annaga waa xaqeena iyo xuquuqdeena ma fahamtay qodobka 32 ee dastuurka baa qeexaya kow qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo macluumaadka dawladdu hayso waxaana ka mida macluumaadka hadda aqoontan soo maaha kan la isku haysta hadda minxooyinka waxbarasho laftirkeeda tan labaad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay helitaanka macluumaadka ay cid kale hayso oo looga baahan yahay in lagu fuliyo ama lagu ilaaliyo xuquuqda shacabkeena tan saddexaad baarlamaanka federaalka waa in uu soo saaro sharci lagu hirgelinayo xaqa macluumaad helida waa wax sax wax loo baahan yahay laakiin ninkaan kale looma sheegi karo lacag u leeyahay kaalay ninkan aadan magacayga muxuu nin odayo aadan la yiraahdo adeer feere haye magacayga aadan miyaad igu sheegtay adiga rooble soo ma ahayn odagii rooble run sheegaha rooble haye waxaan ku yidhi adeer uga caliya ilaahageenta ka baqay wixii ummadda loogu talagalay oo waxbarasho ahaa gabadhaadiyo arijir ah oo wax ay taqaano aan la arag inaad lacag ku kabto dadkii waxbartay oo waqtiga dheer loo soo huray oo muddo dheer wax la soo baraayey oo laga dhul sugayeyna aad bannaanka ku dhigto ood lacag u isticmaasho adeeru ilaaha ka baq oo waxaasi wax la aqbali kara ma aha waxaan rabnaa inaad warkaa naga aqbashaa halkaana ku disho horta gabadhaydu soo ummadda kama mid ah iyada laftigeeda ummadday ka mid tahay hadda waxbar midaas mid diyaarsan baa joogta taa soo diyaari kan diyaarsan ee Soomaaliyeed ee walaasheeda ah waa inaad soo diyaarisaa waana taageersanahay musuqdiid islaantan hadalkeeda marka raallaha macalin mukhtaar adiguna raallaha haye meel kale ilaahay anigana waa ka soo laabtay gabadha haddaan dib u celinaya waxbaan soo baraya gabadha wax soo bar kadib nasiibkeeda musuq maasuq dooni
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco ayuu musuq maasuq yahay mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu waa hagaag qaybaha martida barnaamijka ayaan marka hore milicsanaynaa ugu horreyn waxaan jeclahay inaan fursad siiyo malyuun sheekh xaydar guddoomiyaha ururka haweenka ee qiimayntii horumarinta malyuun marka hore ku soo dhowow barnaamijkan gaarka aynu kaga hadlayno dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga hortegi karo waa dhawahay walaahi musuq maasuqa wadanka dhan uu qabsadayba waana wax loo baahan yahay in laga hortago iyadoo loo wada guntanayo min shicibka ugu hooseeya ilaa dowladda ayagoo iskaashanayaan waxaa muhiim ah in dhammaan laga wada hortago lagana wada qayb qaato haddii musuq maasuqaas meesha uu ka baxo waxaa imaanaya nidaamkii dowladnimo iyo kii shacabka iyo qof walbo magaca ku abtirsada dowladda ama shacabka iyo hadafka laga leeyahay nidaam in la helo oo sax ah oo cadaalad ku dhisan laakiin ururadiina arrimaha haweenka kaalin intee leeg ayaad ka geysataan ka hortegidda iyo in la diido musuq maasuqa wallaahi haddaan nahay haweenka soomaaliyeed khaasatan hay-adda horumarinta iyo qiimeynta oo haweenka door weyn ayay ku leeyihiin inay ka hortagaan musuq maasuqa sababtoo ah hooyo waxaa waaye wax walba wiilkan iyadaa dhashay midka qabana waaba la joogyaa kan kalena waa walaalkeed oo waxaan filaya inay dhammaantoodba haddii maanta meel kasoo wada horjeestaan ay leedahay musuq maasuqaan iyo waxaan hala joojiyo door weyn ayay hooyooyinka ku leeyihiin haddana civil society-ga markii group ay yihiin ay dad joonta isla shaqeeya yihiin waa dad awood leh laakiin waxaa hadda meesha ilaa weli ka maqan qaabkii looga hortegi lahaa iyo awoodii iyo dhaqaalihii ku bixi lahaa intaba lacagaha inta badan lagu bixiyo in bulshada ay gaaraan amba qaab uun loo bajadgareeyo ee musuq maasuqa ku baxa bal ka waran wallaahi bajetka oo bajedadan dowladda intooda badan baxa musuq maasuq waa jiraan xaqiiq uusan musuq maasuq ka jirin maba jirtaba waxaa kuusoo haray shicibka shirkadaha oo kale musuq maasuq weynaa ka jiran waxaa ka jira dhulka oo kale musuq maasuqaa ka jira garsoorka sidoo kale waa aragtaan ma shacabka waxa dhegihiisa ka buuxaya waa musuq maasuq inuu jiro laba isweydiinaysa ma jirto laakiin muhiimadda waxay tahay qaabkii looga hortegi lahaa oo loo heli lahaa nidaam saxa oo cadaalad ku dhisan hay-adaha aan dawliga ahayn qudhooda waxaan in badan goobjoog u ahayn in aad aragto siminaaro boorkooda uu ku qoran yahay 3 maalin oo maalin iyo 2 maalin la qabto maalinta kalena musuq maasuqo lacagihii loogu talagalay ayaga qudhooda soo lama dhigi karo hay-adaha NGOska musuq maasuqa kaalin ayay ku leeyihiin way ku leeyihiin oo kuma dhahayo laakiin boqolkiiba hal waay ma badna
way jiraan hay-ado soo qorta boorkooda oo waxay kuleeyihin waxaa soconaya seminaarkan 11 bisha ilaa 15 marka 15 ugu qoran meesha inta badan waxay yiraahdaan 12 gaaraan markaas si wadiiso dhaxal xagga waxa ku qoran 12 ilaa 15 so reasonkaas muxuu yahay markaad raahidna justification ay sameystaan laakiin ma badna waa dad hadda inta badan aad u ilaaliya laakiin musuqmaasuqa baahsan min bilow ilaa dhammaad meel walba ka jiraa waxaan loo baahan yahay in sida ugu fiican uguna dhaqsaha badan in loo wada istaago sidii uu ku baabi'i lahaa taasna wuxuu ku baabi'i lahaa aan markaa la israacsado kala soo jeedinteeda in la helo cadaalad sababta hadday cadaalad fasho waxaa yaraanaya ama meesha ka baxaya musuqmaasuqii oo la sameynayo awalan waxa uu ah in la helo cadaalad second waxa ah in la helo sinaan sababta ah markay power sharing inta badan la yidhaahdo waa in si siman loo qaybsado awoodaha hadda hay-ado badan waa aragnay wasaaradii waa aragnay seminaarada dad waxay qaasay jiraan oo keli ah dadka u qornaayo la tiraa dad kale la diraa wasaaradihii sidoo kale wasiir walba oo yimaado wuxuu involved ku yahay beeshiisa sababta ah isbagtii uma siibo dadka kale dad master double master wato degree oo meelaha taagana arkaysa oo jobless ah markaasaa qof kale oo in adeernimihii meel lagu geynaa markaasaa isagii la xoojinaa marka waa jira musuqmaasuqa milyuun tan waxaa ilaa iyo iminka maqan guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa maxay dowladdu guddigaas u magacaabi la'dahay guddigan waxaan filaa aniga dowladda in badan shirar badan oo human rights oo wasiirka cadaaladda hore ee taarax iyo ay wada joogeen macal guddiga garsoorka oo dhan oo isheeg oo meesha fadhiyaan ayaan waxaan dhahay kala soo jeedin aan ka jeediyey oo ahayd in la helo isheeg la dagaalanka musuqmaasuqa guddigii anti corruptionka oo ahay meesha wuu ka baxay sababta guddigaas hadduu yimaado waxaa imaanaya in la xisaabtan uu geliyo xataa madaxweynaha ilaa hay-adaha dawliga ilaa meel walba uu gela sababta waxaa lama celin karo waa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa guddigaas ilaa hadda lama magacaabin ma garan karno wixii loo magacaabi laayahay waxayna ku jirta la soo jeedintii oo civil society-ga ay soo jeediyeen waxaa kaloo iyadana meesha ka maqan hay-adaha dastuuriga inta badan markay qabsadaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ama xukuumadaha sarsare mas-uuliyiinta sare waxa kala hada waa maxkamad dastuuri ah iyadaasna way dhaqan geli la-yihiin ma garanayo baarlamaanka laftirkiisa inuu qayb ka yahay oo diidan yahay in meel kale ay ka furmaan sharciyad kale ayagoo taagan taas laftirkeeda waa la dhihi karaa marka waa tahay milyuun waktigaana guraya waa mahadsan tahay sida habboon ee aad markaasi barnaamijkan ugala qayb gashay iyo weliba soo jeedintaadii fikirkaaga iyo sharaxaaddii aad ka bixisay waxay ahayd milyuun sheekh xaydar guddoomiyaha ururka haweenka ee dhanka qiimaynta iyo horumarinta aad baan ugu mahad celinaya sida barnaamijka igala qayb gashay wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin goordhow qaadka teleefanadii dhegeystayaasha ayaan furi doonaa ayadoo dhegeystayaashu ay naga soo wacayaan taleefanka 644 oo dooda ay ka qayb galayaan fikirkoodana ay dhiibanayaan balse mar kale waxaan jeclaan lahaa inuu sharaxaad koobanna siiyo oo aan barnaamijka ku soo dhoweeyo cabdulaahi maxamed shirwac guddoomiyaha dalladda jalayaasha aan dawliga ahayn ee soshensa marka hore waxaa dhowr su-aal weydiinaya abuukar muxiidiin xashara musuqmaasuqu waxaan u malaynayaa in arrin la wada og yahay uu yahay oo dadka soomaaliyeed yacni qarni ka hor ayaa sayid maxamed cabdulla xasan wuxuu yidhi musuqmaasuq soomaali waa meheradeedii hadda ayay muuqataa arrintii hadda ayay muuqataa dhibteediina hadda ayay meesha ugu sarrayda ay joogtaa yacni haddaad u fiirsato shacbiga soomaaliyeed meel kasta ay joogaan lacag sharci darra ayaa laga qaadaa lacagtaas sharci darada waxay socotada hadda way 100 jibaarantay baan u malaynayaa nolosha magaalada muqdisho ayaad ka qiyaasi kartaa maxaad u malaynayaa marka tuuladii waad arkayda dad labisan oo muxuu ahay lacag qaadaya waxba yaraatee sharci lahayn
waxaad arkaydaa wasaarado muxuu ahaa mataqaana dadka lacag ka qaadayo oo lacagtaasi aan bangi lagu soo shubaynin ee maaragta qof meel fadhiya uu qaadayo dadkii oo dhan lacag baa laga qaadaya wax lagu soo celinayana haba yaraatee ma jirto marka hay-adda seshanso sanadkii hore bishii abril ayaanu waxaanu hawada gelinay barnaamij la magac baxay xisaabtanka dadweynaha oo ujeedadiisu ay ahayd dadka Soomaaliyeed inaysan bixinin lacag aan sharci lahayn yani sharci lahayn aan muxuu mataqaana qofka qaadaya uusan sharcigii wadan dadka aan adeegiisa aan wax lagu soo celinaynin muxuu ahay meel sharciyana aan ku xaroonaynin yani hadda waa la isku baroor darsanaya laakiin dhibta ugu weyn shacabka ku dhacayda lacag kasta oo la qaado ama qanacsataha laga qaado ama dekada laga qaado ama laga qaado aeroboor waxay ku noqonaydaa waxa weeyaan jeebka shacabka ay ku noqonaydaa shacabka ayaa waxa la rabaa marka inay xisaabtamaan oo ay yiraahdaan waxaanu rabnaa lacagtina la ka qaaday meeshii ay gashay waxaan ka xunnahay in muxuu ahaa mataqaanaa madaxdu markii hore ee sanadkii 2012 ay sheegeen in aan loo dulqaadanaynin musuqmaasuquna uu laba lixaadsaday oo maaragta uu cirka marayo ayaad arkaysaa marka musuqmaasuqu waxa weeyaan waa cadow hortaagan shacbiga Soomaaliyeed horumarkiisa waay qof kasta oo bixinaya ama qaadanayana horumarka ummadda ayuu hortaagan waayo lacagtaasi la qaadayaa waa lacagtii canshuurta u dhigantay waa lacagtii dugsiyada lagu dhisi jiray isbitaalada lagu dhisi jiray jidadka lagu dhisi jiray waay marka yani musuqmaasuqa dhinaca kale waxa weeyaan qof qaylinaya dhahay musuqmaasuq ka qaylinaya oo isagu wata baabuur $35,000 ah oo mushaarkiisu haddii 5 sano la ururiyo uusan goyn karinin yani waxa weeyaan wax la yaabo waay aad loola yaabo waay marka dadka hadlaya muxuu ahaa mataqaanaa musuqmaasuqa waxa fiicnaan lahayd inay iyagu ka dhowrsoonaadaan markaas ka bacdina ay dad kale eedeeyaan si looga bixi karaa sida waxay musuqmaasuqan dadka iyo dalka dilooday oo laga wada qayliyo baarlamaanka qaylinayo guriga wasiiradu ay qaylinayaan weli bulshadu adigu aad hogaankooda taad qaylinaysid haddana si muuqata oo dhamaystiran aan wax looga qaban xataa xeerlaaliyaha guud ee dowladdu uu qayliyo arrintan ka qayliyo si wax looga qaban karaa qaabkee loo abaari karaa horta waxa weeyaan musuqmaasuqu waa heerar kala duwan waay marba meel buu joogaa midka ugu weyn waxa weeyaan midka hay-adaha dowladda ee shacbiga Soomaaliyeed matalaya ay samaynayaan waay xafiisyadaas oo dhanna waa la yaqaanaa waa xafiisyada lacagta qaada ugu horeeya kuwa dadka qoraa ugu ku xiga waxaa ku xiga kuwa muxuu aan qandaraasyada bixiya ayaa ku xira marka waxa weeyaan dowladdu in ay sharciyo adag ka soo saarto guddigii madaxa bannaanaa ee la dagaalami lahaa musuqmaasuqana in la magacaabo oo la dhiso lana qalabeeyo lana howlgeliyo ayaa loo baahan yahay marka guddigaasina inuu sharci adag leeyahay oo dadka kula xisaabtami karo oo qof kasta oo musuqmaasuq lagu soo eedeeyo maaragta in muxuu ahaa la xisaabtami karo in la gaarsiiyo horta taas waa kow waay guddigaasi haddii uu jiro waxa weeyaan hawshaasi waxa weeyaan bulshada rayidka ayna gacan ay ku siinaysaa dadweynaha Soomaaliyeedna wacyigelin baan u samaynaynaa laakiin hadda guddigii ma jiro hay-adii madaxdii dowladuna cabsida wadna gooyday xafiisyadooda kana soo baxaan oo hoosteeda waxa lagu samaynayo war uma hayaan marka waxa muhiim ah waxa weeyaan in guddiga la dhiso guddiga dad karti iyo aqoon leh daacadna ah in maaragta loo dhiibo dadweynaha Soomaaliyeedna maxaa mataqaanaa dood furan loo sameeyo lagu wacyigeliyo inaysan bixinin lacag aan sharci lahayn dadkana aan kusoo noqonaynin labadaas sharad waa muhiim waa lacag laga qaadayo lacag xeer kasta lagu qaado waa in lacagtu ay leedahay sharci lagu qaadayo marka labaadna waa in la yaqaano qaybta dadweynaha kusoo noqonayo dadkii laga qaaday maxaa kusoo noqonayo dugsi loogu dhisayaa isbitaal loogu dhisayaa jidka laga hagaajinayaa biyaha laga nadiifinayaa koronto iyo maxaa dab loogu samaynayaa yani noloshii oo dhan bay hortaagantahay musuqmaasuqa hortaagan dadka lacagtii waa laga boobayaa mana kusoo noqonayso taa wax la qaadan kara maaha ciidankii amniga ayaa dhahaya 6 bilood 4 bilood mushaar ma qaadanin lacagtiina waa la qaaday marka dowladda hoose iyo wasaaradda maaliyaddaba waxaan u soo jeedinaynaa waxa weeyaan lacagta la qaadayo waa inay meel u yeelaan
waa in la yaqaano lacagtaasi sharciga lagu qaadayo iyo sharciga lagu bixinayo. lacagta caadi waa la yaqaanaa, dowladda sharciga way ugu xarootaa, miisaaniyadna way uga baxdaa. marka hadda labadiiba midna ma jiraan. marka xisaabtanka yani jilayaasha aan dowliga ahayn waxa waaye annaga waxaanu haysanaa cid kasta oo lacag qaada. cidda lacag qaadana waxaanu ka rabnaa inay lacagyo ay qaadeen meel soo saaraan. maaliyadda, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kaleeto, gaar ahaana gobolka banaadir isagaa matala dadkan magaalada xamar ku nool. gobol walbana muxuu mataqaana dadka maamulka u haya ayaa laga rabaa inay la xisaabtamaan. marka xisaabtanka aanu rabno inaanu socodsiino haddii ilaahay yidhaahdo haddana socdaa waxa waaye lacag dadkaa laga qaado, canshuuraha laga qaado muxuu ahay. laakiin aad ayuu mahadsan yahay cabdulaahi maxamed shirwac, guddoomiyaha dalladda jalayaasha aan dowliga ahayn soshansa. waan kaga mahad celinayaa sida barnaamijkan uu nagala qayb qaatay. qaadka teleefanadii dhegeystayaasha ayaan markaan gudbayaa. dhegeystaha qaadka ku jira barnaamijka dooda galabta waxaynu kaga hadlaynaa dhibaatada musuq maasuqa si looga hortegi karo. halo, asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. walaal magacaaga iyo marka horeeta bal kusoo dhawo barnaamijka. waa ku dhawe. haye jaziira zaynab, barnaamijda la socotay bal fikirkaaga ku aadan dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay. waan ka xumahay zaynab, qadkii ayaa ka go-ay sidaa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa inaan fursad siiyo dhegeystayaal kale. taleefonka dhegeystayaashu ay nagala soo xiriiraya annaka dooda waa 644-333 oo ay ka soo wici karaan leen iyo mobile. ma jirto wax furaa oo laga hormarinayo. wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay. waa hagaag. galabta dooddu waxay ku saabsan tahay dhibaatada musuq maasuqu uu leeyahay iyo sida looga hortegi karo oo dhegeystayaashu fikirkooda ay ka dhiibanayaan barnaamijkan gaarka ah. balse waxaan jeclaan lahaa mid iyo laba inaan fursad siiyo. halo, asalaamu calaykum. waalaikum salaam waraxmat. walaal codkaaga sare u qaad, soo dhawow magacaaga. saaro joogto degmada kaaraab. haye barnaamijka la socotaan umalaynaya. in badan waa la socdaa. bal fikirkaaga ku aadan qaabka musuq maasuqa looga fogaan karo. walaa waxaas dhigi karaa inay dadka soomaaliyeed ay midoobaan ee iska dhaafaan waxyaabahaasoo kale intay inu istaagaan siya dalkooda wax ugu qaban lahaayeen because musuq maasuq wax la ay gaari karin walaanbo. mararka qaar ma dhacdaa in dadku qudhooda ay musuq maasuq sameeyaan amba ay ogolaadaan oo ay fududeeyaan lacagihii musuq maasuq ay bixiyaan? way dhacdaa taas marar badan. waa hadda oo ka socotaa samaha wadanka. waa mahadsan tahay, waan kaaga mahad celinayaa fikirkaaga iyo sida habboon ee aad barnaamijka igala qayb gashay. dhegeyste kale ayaan fursad siinayaa barnaamijkan gaarka oo ayn galabta kaga hadlayno dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo qaabka loogu hortegi karo oo dhegeystayaashu qaadka teleefanada ay markaasi uga qayb qaadanayaan. haddaba dhegeystayaasha dhanka lineka ee barnaamijka nagala qaybgalaya waxaan ka codsanaya in raada iska fogeeyaan. halo, asalaamu calaykum. halo, waan ku maqlaa walaal magac. halo, asalaamu calaykum. halo, waan ku maqlaa walaal magacaaga iyo deegaankaad iga soo wacayso. waan ka xumahay dhegeystahaasi, waan ismaqli weynay, sidaa daraaddeed qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan gudbayaa. halo, asalaamu calaykum. waan ku maqlaa dad barnaamijka la socotay horu soo gudub magacaaga iyo deegaankaad naga soo wacayso. wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawow barnaamijka galabta waxaynu kaga hadlaynaa dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay sida looga hortegi karo. bal magacaaga marka hore. magacan ku raacay waa cabdulaahi maxamuud maxamed cabdulhabiibi degmada wadajirta aga dhegtasiirahaalo kusule. cabdulaahi, sidee looga gudbi karaa dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay? musuq maasuq waxaan dheelaaniyo wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin. cabdishakuur, barnaamijka ma la socotay? si fiican ula socdaa. haye soo gudub.
walaale waxaa looga hortegi karaa musuq maasuqa in maaragtay qabaniyada xun oo dadku adeegsado in maaragtay sharci laga soo saaro haye taas haddii aan la helin waxa weeye dadku xuquuqdooda ma heli karaan mana ka waantoobi karaan musuq maasuqa sharciga ayaa ka soo saaraya marka sharciga waxaa ka soo saaraya dawladda maxaa haye baarlamaanka ka soo saaraya ayadoon qabaniyada xun oo loo adeegsado aan loo helin xal ma laga musuq maasuqa lama dhamay karo dhanka shacabka sidee uga fogaan karaan amba ay u joojin karaan musuq maasuqa ya shacabka qudhooda sidee uga fogaan karaan oo ay u diidi karaan musuq maasuqa shacabka dantooda waxay musuq maasuqa uga fogaan karaan inay danahooda gastaan oo dadka musuq maasuqa wada oo u danaynayaan oo ay maaragtay ayaga horfoodeynta oo wax u siinayaan ay ka fogaadaan oo ay shacabka shaksiga oo dantiisa garto ayaa maaragtay looga fogaan karaa haye dadku ayagaa musuq maasuqa hormarinaya oo wax wada fududaynaya waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa fikirkaaga iyo sida habboon ee aad barnaamijka ula socotay oo aad igala qayb gashay wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogna qaybaha dambe ayaynu maraynaa dhegeystaha kale ee khadka ku jira halow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal magacaaga marka hore walaal waa cabdiweli maxamed daahir oo jooga degmada wadani waa berise lagu yahay galabta aad baa lagu wanaagsan walaal soo gudub bal fikirkaaga ku aadan barnaamijka maanta walaal aad baa umahadsantihiin aad baan ola socday barnaamijkan aad aadweynaysaan runtii musuq maasuqa wuxuu ka mid yahay waxyaalaha hareeyey ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah boqolkiiba boqol runtii waxaana la dhihi karaa oo lagu tilmaami karaa soomaali ahaan hadda marka la dhahaa oo maamulka xagga dawladda haddii la dhahaa dhinac kastaba nolol maalmeed ayaa lagu tilmaami karaa inuu ka noqday hadda dhulkeena runtii waana wax u baahan weeyaan in laga hortago gacmaha la isqabsado oo lala dagaalama musuq maasuqa hareeyey dhulkeena soomaaliyeed waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa fikirkaaga iyo sida habboon aad barnaamijkaagala qayb gashay wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee waa hagaag dhegeystayaasha dhanka fariimaha ayaan mid ilaba fursad siinayaa asalaamu calaykum magacaygu waa cabdiwahaab waxaan ku suganahay degmada yaaqshiid gaar ahaan jongal anigu waxaan aaminsanahay musuq maasuq inuu yahay mid dilay soomaaliya waxaan loo gudbi karaa in sharciga la dagaalanka musuq maasuqa la dejiyo waa mahadsantahay aan leenahay magacaygu waa leylo oo ku sugan warta nabadda waxay la tahay in musuq maasuqu shacabka qudhiisa uu qayb ka wado dhammaan waan u mahad celinayaa dhegeystayaashii sida tooska qaata telefoon usoo galay iyo kuwa dhanka fariimaha farsamada qadar ayaa galabtii inoo jooga barnaamijka waxaa igala qayb galay dhanka martida malyuun sheekh xaydar gudoomiyaha ururka horumarinta iyo qiimaynta haweenka iyo weliba sidoo kale cabdulaahi maxamed shirwac gudoomiyaha dalada jalayaasha aan dawliga ahayn soshansa waxaana barnaamijka dhanka dibinta gacan ka geystay abuukar muxiidiin xashara waa abdicays cabdulaahi maxamed riil wadalinta barnaamij midkaan lamid aynu kulmayno nabad gelyo wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii